waan uga mahad celinayaa kulanka idin qabteen iyo dhiirigelinta marka labaadna si weyn baan runtii idinku mahad celinayaa sida aad ugu soo joogtaan inaad Somaliland danaheeda ka shaqeysaan idinku dad badan baa Somaliland magaceeda ku shaqeeya laakiin mushahar wanaagsan ku qaata gawaari wanaagsan ku haysta guriga ku haysta caruurtooda dibadaha u dirtay idinkaas siiya biilka ka bixiya oo cashuurta ku dhididaan ayay ku shaqeystaan kuwii saa u shaqeystay ayaa idinku wax siiseen caruurtooda dibadda wax ku baranaya intii soo fariistaan idinka cadowgeedu ku tilmaamaan marka hore waa nasiib daro waayo qofkaas waa inuu xasuusaa hantida shaarka uu xidhan yahay shaaha uu cabay caruurtiisu waxay cuntay intaba idinkaas iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland cashuur bixiyaasha taa in marba la xasuusnaada talabaad shaqada haysan waa shaqo ajir ku helisan waayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa laga soo xigtay uu ku soo wariyay in qofka walaalka hadduu wax dulmiyo hadii la dulmiyo labadaba aad qabatid hadduu wax dulmiyo dulmiga iska daabaad ku oranaysaa waad qabatay kolka waa waajib waxa kale oo rasuulku sheegay in qofka muslimka ah ee muuminka ah hadduu dulmi arko uu hadduu gacantiisa wax kaga qaban karo baawarka hayana uu qabto haddii kalena uu sheego haddii fursad uu siinayso hadday meeshu wada xidhan tahay closer tahayna uu uurka ka naco aan marka ku farxin ayaa sheegaysa quraankan ilaahay dhow jeer buu ku soo celceliyay inuu ummadda dunida ugu khayrka badan sababtuna inay tahay inaynu khayrkana isu sheegno xumahana aynu iska reebno horta shaqada haysan waa shaqo ashir ku helisaan haddaan niyadda gashataan taana wayna ku xasuusnaataan waynaydaan dib uga guran oo aydan ka baqin dadku xabsiga way necab yihiin cidna xabsiga ma jecla xabsiga qofku markuu galo laba waxba uu kala yimaadaa xogaa yar oo cadha uu kala yimaadaa oo decidii xidhawadu yar caroonaysa intimidation way tahay qofku xisooranaya dib dambe meesha ugu noqon inuu iska ilaaliyo labadaasi way ka yimaadaa labadaba way idinka digaya waayo aayad quraan ah oranaysa inaad cidna ceeb tahay ay kugu keenin inaad cadaawadaasi inaad ficil ku sameeysid marka way idin dhibeen way idin xanuujiyeen sharci darro idin ku xidheen kuwaan xaq u lahayn baa idin xidhay sirdoonku xaq ma leeyahay xidhaan meelaan xaq loogu lahayn baa lagu xidhay leedinku xidhay kuwii sirdoonka loogu xidhay because sirdoonku inuu meel dadka ku xidhaa waa qeyru dastuuri si aan sharci ahayn baa leedinka dhaqmay because qaarkiin feeriyalaad baa lagu dhuftay dadka qaarkood xabad baa lagu riday kor looma qaadin anigu waxaan tagay xarunta home cable TV albaabkeeda ay xabad ku dhufteen waan soo sawiray in halka joogta way ka sheekeynaysaa ma dhawaato iyadoo sidoo kale ninkani masaajid buu ka soo baxay iska soo tukaday nin saaxiibkii buu ka socday Axmed Abees waa la bowday suxufi baa loo gartay meesha muu joogin wuxuu muuqan sagal waa taa la sheegay waa la soo dabay horta marka dulmi fara badan baa socda anu waxaan ku soo gabagabeynaya dadka dulmiga sameynaya inaynu naseexayno waa rabadaan inuu duceyno nahna walaal way dadka waxa sameynaya dad inaga fog ma dad walaalihiina cid cadow inuu soo duushay oo hadda dib inagu haysaa ma jirtay waa dad inaga tusoo walaalihiina inaynu saaxino ana walaalayaal iska daayo waxa soo dastuurka iyo xeerka ku shaqeeya idinkana waxaan ka codsanayay inay midoodaan anu dhowr iyo 10 sanadood hadda xuquuqisaanka idin la joogay shayga ugu weyn saxaafadda ka bartay waa tafraaruq dhexdiina marka tafraaruqu jiro waa idinka adeegya waayo hadii hebel la boodo oo aad ka aamustid oo la soo yaraa caburiyo oo la soo daayo doona maanta dambe TV la xayiro oo aad ka aamustid waa lagu imanayaa hadda way TV-da ka shaqeysan uu yar yahay mid aan la xayirin ama aan dib loo geysanin hadda hal voice ku wada hadashaan way istaagaysaa because cidina idinka ma xoogayna laakiin hadii la idin kala yara gurgurto way adkaanaysaa marka idinku aan ku xad gudbin dawladda idinku aan dib u geysan idinku aan caradu idinku qaadin inaa mashaakil ku geysataan inta ay xaq u leedihiin ayaan oranaya iskaga celiya difaac nafsiguna waa khayr waa shay diiniya laftigiisu inaad wax iska celisid inaad dulliga qaadataa laftigiisu wax loo ogol yahay ma adigu aan dagaalamaynin oo aan xabad sameynaynin gudoomiyahana waan uga mahad celinaya arrinkaas midna waan idin sheegaya laydin ma haysan karin hamoodin in axsaan laydin sameeyay cid 13 wariye 15 wariye xabsi ku hayn kartaa qarniga laatanaad ma jirto dabadana cadaadis baa ka saaraa gudahana cadaadis baa ka saaraa xokalka idinka waa idinka sii yaraadayay si 3 4 xiran ay ugu sii jiraan muddo marka waa inaan carabka ku adkayna 4 xiran in la sii daayo 3 ma waa 4 cabdi Germany waa la ilaaway dib badan waa loo geystay wax badan gudiga xuquuqisaanka waxay sheegtay dawladdu in la jir dilay bay sheegtay iyaga sheegay reportka ku soo saaray waa akhrideen ya waa la jir dilay bay yiraahdeen jirdirku waa dambi waxa dastuurka ku qoran waa dambiga wuxuu ka mid yahay dambooyinka tiro yar ee aan waqtigoodu dhicin macna 20 sanadood kadib haddaad soo dacwootid qaanuunka Soomaaliland waa lagu ciqaabayaa qofkii ku jir dilay marka diiwaan gashada kuwa waxa idinku sameeyay hadda magacyadooda garanaysaan maalinta ay timaado dawlad miyir qabtaa waa ashkateen kartaa dabadna xabsiga la idin soo taagi doona haddayna cararin oo aanay meel kala qaban waxay u eegyihiin dad cararaya waa mahadsantiin